waxaa dhacda sanad walba oo bilowda iyo marxalad walba oo qofku uu galo inuu dejiyo qorshayaal iyo ahdaaf sare u gaar ah balse waxa badanaa dhacda sidoo kale in aanay qorshayaashaas iyo ahdaaftaas iyo waxa uu qofku dejiyo aanay hirgelin ama boqolkiiba tiro aad u kooban ay ka hirgasho talow maxaa dhacay يعني waxa la isweydiiyaa qofku hadii uu doonayo meesha yani marka uu taagay inuu ka dhaqaaqo isla markaana uu gaaro meesha marka uu higsanayo isagoo raacayo qorshayaasha iyo ahdaafta uu dejisanayo ma gaaro ilaa uu bedel caadaadka maalinlaha samaynayo يعني dhaqamada maalinlaha samaynayso iyo caadooyinka maalinlaha samaynaysa hadii aanad bedelin oo aanay noqon qaar ku horseeday halka aad doonayso inaad gaadho suurtagal ma aha inaad gaadho waxaanu markaa maanta ka sheekaysan doonaa insha Allah ama isla wadaagi doonaa buud ugu qiimaha badan leh ama ugu sareeya inta aan qaano runtii buugaagta isla markaana aadna yani faalada looga bixiyo yani kaasoo ka hadla markaa caadaadka iyo qofku sidoo yani caadaadkiisa u bedel lahaa magacaygu Cabdullah Mansuuri daawasho wanaagsan soo dhawaada waxaan isla wadaagi doonaa maanta buugga loo yaqaano Atomic Habit oo qoray James Clear buuggaas runtii dhamaantii wada garanaysan carabi ahaan waxa loo turjumay al-caadaat ad-dharriya يعني buuggaas oo buug runtii aad u qiimo badan waana buugaagta ugu tayada badan ee xagga yani self development iyo horumarinta nafta aad ugu hadla waana buug aad loogu taliyo qofka hadii uu doonayo caadaadkiisa inuu bedelo marka inuu akhriyo oo marka uu soo dhigto buuggaas waxa uu qoraydaas si xeel dheer oo faahfaahsan runtii uga hadlaya caadaadka iyo sida ku sameysmaa iyo dhaqamada sida qofku u bedelo yani si uu isku bedeli lahaa dhamaan caadaadka oo dhan qaar cusubna marka uu keensan lahaa yani kuwii xumaa oo meesha uga saar lahaa qaar marka wanaagsan uu keensan lahaa haddaba qoraan wuxuu inala wadaaraya ama buug uu si guud inuu la wadaaraya wuxuu leeyahay hadii ay doonayno yani halka aynu hiirsanayno inaynu gaadhno oo marka qorshayaasheena iyo ahdaafta aynu leenahay inoo hirgalaan la budda waxa ugu muhiimsan buu leeyahay inaan marka aynu wax ka bedelno yani caadaadka maalinle aynu sameynayno sida daradeed qoraan waxa uu qodobkiisa koobaad inuu la wadaaraya soo qaadana waxa weeyaan yani isbedel waxa ku samaysaa boqolkiiba halna ha noqotay caadaadka maalinle sameynaysa isbedel u sameyn sadaradeed wuxuu leeyahay qofku wuxuu ka kooban yahay caadaad adariye yani caadaad kala duwan buu ka kooban yahay qofku oo subaxii maalinta markuu soo kaco ilaa habeenkii intuu ka seexanayo dhaqamaa jira fara badan oo qofku uu sameeyo qaar routine ha noqdaan iyo qaar markaa kusoo dariyo oo markaa sikadiisa ugu yimaada haddaba wuxuu leeyahay qofku hadii uu caadaad cusub u keensado oo markaa caadaad cusub oo wanaagsan markaa uu naftiisa kusoo kordhiyo hadii aanu caadaadka hab yani systematic oo wanaagsan oo markaa yani qorshaysan aanu caadooyinka aanu jid u marin ama يعني سي يعني قرشيسان أو نولشيسا قيب وجمد دقين وحاو قف كون غدا كوي هراء يعني واحد رجع بقى ما أنت عاد فضل كقاطع ترى ما أنت عاد عصبي وناسين صوت ما أنت نروح آخرية وياه ما أنت يبريبت كتم بيجي آخري وحي لكن كتم يسي شورتين ميسو عادة دي هراء الهايد هايد أنا وحب آخرين دي ونقانسها مرتا وحول لي هاي اسبدل كأنه سمايا نهارت بل اسبدل يروح هون هالنقطة بقول كيف هلنا أنا قبل أو نهارت عادات هنا أنا وحكي بدله مركا أنه بدلنا هب رسمي هو ناسين أنه وحول بدل لي أنا عاد فترة هنا قاطع سبلا qorshe inta ku fikiro hal mar yeena markaas bedel ku sameyn waxa soo kale qodobka ku sheegaya ha ku qancin caadaadka routine-ga samaysa maalin walba yani maalin walba iyo isbuuc walba iyo bil walba way xisaka bedelaan oo caadaadkaagi hore shalay sameeyay caadaad ka wanaagsan waana markaa yeelata qaar xun oo yani markaa aan noloshaada horumar gaarsiin hadda lahayna waana markaa meesha ka saarta sidaa daradeed waxa uu leeyahay yani caadaadka wanaagsan waxay waqtiga ka dhigaan oo markaa yani ay kaaga dhigaan waqtiga mid kula saaxiibo oo jaal kula ah hadii markaa yani caadad xun aan leedahayna waxay waqtiga kaaga dhigayaan mid cadow kugu ah oo markaa aanad waxba aanad kaga faa'iideysan isla markaana adiguba markaa aad nacay qodobka labaad uu soo qaadanaya qoraan waxa weeyaan waxa uu isbarbardhig ku sameeyaa ahdaafta iyo systemka markaa waxa uu leeyahay in ahdaaf aynu yeelano waa sax waynu yeelan karnaa laakiin in ahdaafta aynu systematic ka dhigno oo hab qorshaysan oo farsamaysan aynu ka dhigno ama nidaam nolosheena aynu ku soo kordhino يعني ayaa yani kaaba wanaagsan markaa waxa markaa qoraan aad yani u dhiirigelinaya isla markaana u fadilaya isla markaana uu boorinaya in nolosheenu systematic ay noqoto maxaan ka wada tusaalahan hadii maanta aan iraado yani waxaan ku fikirayna wax akhriyo waayahay bari buug baa soo qaadanaya nooc doona ha noqdo soo qaadanaya akhriska waan bilaabay يعني wax allaale wax qorsho oo aan ka sameeyay haba yaraatay ma jirto laakiin يعني habka noocaas wuxuu leeyahay dad wado oo caadifada ka dhamaato wax laga yaabaa inaad halka ku ilowdo oo dib aad markaa u isticmaalin laakiin wuxuu leeyahay hadii markaa aad isticmaalayso hab systematic ah maxaa sameynaysaa buugii aad ugu fiicnaayay markaa aad doonayso soo qaadanaysaa jecelayd waxa sameynaysaa markaa waqti gaar ah oo wax akhrido waxa sameynaysaa yani buug gaar ah oo markaa maalinta aad akhrido waxa soo kala sameynaysaa asxaab iyo cid markaa buugii kula wado oo kula dorfayso oo markaa yani isla wadaan oo hawshii aad wada wadaan
caadadii asla wada dhistaan waxa laga yaabaa inaad caado wanaagsan oo marka hore aad lahayd ku xidho yani salaada subax markaan ka baxo kale aan quraanka yar akhristo ayaan buugtan akhrinaya intaana seexan koor yani hab systematic aad baba caadadii aad u dajisay marka wuxuu leeyahay caadada nooca aad u samaysaa noloshaada si fiican bay qayb uga noqonaysaa laakiin haddaan caadada aanad yani hab qorshaysan oo systematic oo ahdaafta aynu iska dajino uun yani inooma hirgelayaan waana adagta inay inoo hirgelaan haddaba wuxuu nala wadaagaya 4 qodob oo markaa inoo diida yani in markaa caadaadka xun meesha ay ka baxaan caadad wanaagsan oo markaa fiicanna ay inoo imaadaan qodobka koowaad qoraal inala wadaagaya waxa weeyaan يعني إن الهدف كلية دجسنا أما أهداف فربضن إن دجسنا كلية إنه مش شيئيان أما يعني إنه ما عدينيان كوشين إيه ما كان دول دردنا يعني إن الأهداف ما تبقول يكتب الهدف عن قرار كريا لكن ده هب كان الراعي يويدا الراعي هدي عن قطه مركزان قفتي أهداف دجست عن كيد وانا كريا بدو عليه كلية إن أهداف كده دجستون وحستقر قرطه كلية ما عدينيان وان دوليست إيه ما دول يعني وان دول درسته يعني هل كتاجنيد ولي وتاجنته وهم بعد قرشيسين لكن واحد فعلا إيه واحد يعني هب وناسن أو مركز هل كذا قاعده ولي ما سمي بولي مركز كلية أهداف أنو سمي سنة ينام قنعين qodobka labaad waxa uu leeyahay ahdaaftu kaliya nolosheena muddo yar oo kooban wax ka bedeli kartaa laakiin haddii hab systematic ay nolosheena aynu ka dhigno oo markaa nolosheena hab yani qorshaysan oo nidaam ku socota aynu ka dhigno nolosheena oo dhan baa isbedelkaas markaa ku soconaya laakiin ahdaafta haddii aynu dejino hadafka xilli yar oo kooban muddo kooban buu leeyahay muddada kooban marka dabaysan markaa waa ka bixi doonta tusaale ahaan waxaad tiri waxaan doonayaa in markaa akhriyo hebel yani 3 buug oo qoray waa hadaf kooban oo cayiman يعني سدح بول مركز أخذ وقراءات دي وتوجس ومركز هذه هدف الله هذا وجادي مركز كاس كولا ما نسا لكن مركز سيستم ديجيتال كاسو أهين النولش يعني أخرس أي كو أهاتو أو مركز أخرس كو دوفرن وكون نوضو ده مركز النولش هذا ودولي ستي برجع عليه هي مدية رطوبة بأهدافته أكنا لكن مركز سيستم وحي أو نقضه يعني مدفر بدل النولش هذا من كل سعر قدر سدح هذا قرار اللي هو داري وحوليه هي يعني أهدافته يعني كلية هذه الأهداف تجتنو وحنا مر والبا إنه كان صراع يلا الله بينه كان نفاد أو كاسو مركا يعني نكفي كرنو مجول درستي مسوون جولستي يعني نظام نوع عصا أي نكفي كرنا يعني هدف في مجاري بسمى جارين يعني الله نوع عصا بين هذا حدانية لكن عليه مركا وح سيستمات أي نقدان أو وح مركا وح كوس عنية أو مركا نلاش هذا يعني للسفر أهل نقدان يعني هو كل راح يسنس مر والبا معنا كسوي إنجاز سميسو يعني هو كل راح يسنس أو صفي عن أي مركا ودرسة لكن هدف كحلية ما طول أنا كفي كرتمية كل دول درستي مسوي كل دول ليستي oo marka war badan ka qaato qodobka afraad ee u dambeeya ee marka waxyaabaha inoo diidan yani ama ahdaafta kaliya inaan dejisano nolosheena habka ay ka dhigaan ama qaabka ay yani ka dhigaan waxa uu leeyahay hadii ahdaaf aynu dejisano kaliya markan hadafka gaano dhiirigelinta aynu hayna halkaas ku baabacaysa laakiin wuxuu markuu systematic yahay waa uu ka wanaagsan yahay waa uu ka horumar fiican yahay waa uu ka waaritaan fiican yahay yani marka uu marka hadafka uu yahay laana marka systematic uu yahay xaafiz iyo dhiirigelin marka joogto aad helaysa oo maalin walba injaas ka samaysay baad marka ku farxaysa laakiin haduu marka uu yahay kaliya yani marka ahdaaf kaliya haduu yahay waxa laga yaabaa hadafka marka gaadho kaliya in halka ay kugu dhamaato oo marka yani halka uu ka dhabo yani dhiirigelinta iyo marka yani xaafizkii ku riixay سيدا درادة القرآن واحد كسر دبنا يعني قدر كهلا بعض مكا أهدافته يسبربلد وكسميني أهدافته إيه مكا سيستم كي نظام يسبربلد وكسميني واحد وليه إن أهداف نلوش إنه أدج سنة وحي نجد يسأل إنه كل سنة عيارته مكا إنه عيارينه لكن واحد وليه هدي إنه سيستم نلوش إنه كرجنا أو سحب سيستماتيك إنه قصمينه وحي نجد يسأل إن مكا نلوش إنه سي عيار كرنا أما الجيم كعيارته مكا صعته إنه مدبر سي عيار كرنا واسيدي قف دجستيت صار عارض تلاقي يعني واحد جارية هالكان صار كان جارية يعني ما تقف halka uu gaaro bas line-kii loogu talagalay buu gaaraya laakiin qofku haduu yiraahdo anigu waan soconaya ilaa yani meesha ay gaarsiiso oo systematic yani noloshiisa ka dhiga yani waxa ka dhigaysaa mid qof ciyaartiisii ciyaari kariya ama awood u leh inuu markaa ciyaartiisii ciyaari karayo laakiin qofka ahdaafta jista waxa ka dhigaysaa kaliya diinka inuu ku guuleysto laakiin qofka systematically mar walba inuu ku guuleysto ay ka dhigaysaa markaa yani ciyaarta iyo game-ka nololeeda uu ciyaarayo qodobka saddexaad ee qoraalku inala wadaarayo ee markaa aan soo qaadana waxa weeyaan wuxuu leeyahay marka aynu doonno in yani tagyiir suluk ay sameeyno ama yani in dhaqankeena aynu bedelno mustawiyaad heerar baa jira la maro wuxuu leeyahay heerka u sareeyo waa outcome waa nataa'ij يعني قيبت لبعض حويا وبروسيس أما العمليات تقوض بيسنا وإيدنتي أما الهوية صدح ذا مركا كلا سرية أو كم بقى سرية نتائج بقى كحرتها مركا ما أو كم بقى سرية واحد بحرة بروسيس بقى كحرتها يعني إيدنتي بقى ضمبية صدح ذا كلا سرية أيام مركا كحرة تقف هالكو كبلعبه إن أنا واحد كبل وأنا بقول لي أما ضدك واحد بدنا يكفي كلام كبلعبه النتائج محيو حي سودالية وحو كفي كلام يعني يصنع لعب بدنا وهلا وأنا مركا عن حرفتها برتا حرفتي ما بقدرنا يبا أوريدي حرفتها هتا حيسة محيو حرفتي يعني يسوي يعني شخصيتي سماها إنه حرفتها برتوا يعني واحد لو بسوي في عين وحي بود حاجه ليا مدير قوم كل حجره وكعاجسيه فرو كقاديا halkaas marka waqtigiisa ku dayacmay yani raqbadii iyo jacaylka uu hayana marka halkaas ku baabay marka wuxuu leeyahay inta ka fikir lahayn outcome-ku ha noqdo shay ugu dambeeya ka fikirno wuxuu leeyahay identity ay ka bilowno
identity يعني شخصيتنا إنه محن أقانا محن جعلها محن كفي عنها محن كون أحسنها محن حسيا محن أود ليه عن كفكره marka inta ka fikirana iscadeeyay marka noloshayda iyo nafteeda aan garto waxaan ku wanaagsanahay kadib marka processka aan galo yani waxaasan ku wanaagsanay processka marka maraya processka iyo habkii shaqada loo qabanayo iyo marka inaan wixii wanaajiyo iyo inaan guul fiican ka gaaro waxaas oo dhan marka sameeyo ta ugu dambaysan wada outcome maxaan natiijo ka faa'iiday wixii aan soo sameeyay marka maxaan natiijo marka ka faa'iiday natiijadu marka waxa ugu dambaysan marka aynu aragno isla marka aan ku faraxna ama aan ka fikirno ha noqoto laakiin marka toobaad inagu aan iska fikirna buu leeyahay oo marka inagu aan sugaano qodobka afraad qoraawina la wadaagay waxa weeyaan sidee aynu caado u samaysan karnaa kayfa nabni caada yani caada sidee aynu samaysan karnaa inagu marka uga jeedna caada cusub wuxuu leeyahay afar qodob ama afar heer bay martaa marka qofku caada uu samaysanaya ama caada yani ama mid xuna dabcan ha noqoto ama mid wanaagsan caada haday samaysanaysa afar qodob bay martaa qodobka koowaad waa maxay waa cue ama wax loo yaqaan al-ishara waxa inaad aragto oo marka dareen ama aad qaado talabaad waa maxay waa craving raqaba wixii inaad jeclaato marka oo marka xiisa ku galo تصدق waa maxay response الاستجابه wixii inaad ka jawaabto oo marka ka falceliso ta u dambayso waa maxay waa reward waa marka inaad marka hesho marka yani mukaafa'a oo marka abaalmarin aad hesho wuxuu leeyahay tusaale kale hadda marka tusaale soo qaadano yani inaan message-ka yani mobile-keena fariinta aynu maqallo waa maxay waa ishaara fariinta baan maqalay markiiba yani maskaxdeena waxa soo dhacay in fariin aynu maqalay intabaahina baa soo jeestay kadibna waxaad ka fikiraysaa iyadoo talo fariintaasi bilad qof aad u muhiim ay tahay raqaba meesha imanaysa waa jeclaanaysa يعني إنه فرينتها يجر إير بس وراسا فرينتي مركز إيرتاد ما بكي سوق قاطو ما حسب أنا سأل الاستجابة فرينتي بس أنا تي كجواب بس وراسا من غير جوابتي وقطمي ما حد عيا ريسبونس يعني وحي أدربتي أو أيا دعيو مركا يعني ما وحي وناسا ونكون نقطة أما وحي حن مركا ونكون نقطة هل كاس مركا كبلا مسا عادته يعني حب صارنا كان ما بكي بس تيرا حداي وحبا دون سنة خدو عدد الحميدة مركا استيل على ساحد أنا ما بكي يكون مشغول يصير رفض مركا أو مشغول يعني تبتها مركا عادون بالأمان حتى قفت marka lagu dhiirigelin waa marka caado xun oo laha marka uu ka tiro badana waxa la yiraahdaa yani waxaad bedeshaa muhiidka iyo in daa'irada ku nooleen ama intii iska bedel maxaa loo yiraahdaa qofku markuu wax akhrisanaya mobilka iska furiyo laana yani awwal shay ugu horeeya caado ka bilaabato ah inuu marka wixii aragti isku aragtaan ayaa marka meesha ka baxaysa marka afarta heer kala duwan ay marka ay martaa marka si aad marka meesha ula saartan wuxuu leeyahay ta ugu horeysa waa inaad meesha ka saarto wixii inaad marka dareenba u qaato ama aad aragtaba wixii waa inaad meesha marka ka saarto marka hadda weydo taakubaad xiisama imamaayo oo wixii de aragtidiiba marka meesha ma jirto ugu dambeyn waxaan soo gabagabeynaa ama qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan yani qawaacid al-arba'a li taghyir as-suluk yani afarta qawaacid ama afarta qaanuun ee marka inaga saacidiya inaan dhaqamadeena aynu bedelno marka يعني مد حن بيكون بدلنا مركا مد وناسا كون بدلنا وحول لي قدر الكبات اجعل العادة واضحة يعني عادة وناسنيد وحتى تكتها مد واضح او وناسا يعني موقتا كده تي حميدة مركا آت وحميدنا قري مركا يعني مركا صوت عادة حميد أد قريسو أو مركا إيضا ماشي اعتصارتو عادة مركا وناسنين الله صوئف بحضو waxa meesha ka dhacsan marka maxay increase ba ka dhacsan yani midna ay hoos marto tii kala marka ay yani tor u baxdo marka laba caado isku lid ahna marka way noqdaan yani caado marka xun hadda lahayd waa caado kale wanaagsan oo marka iyada lid ku ah waa ku bedeshaa si marka tii hore marka meesha ay uga baxdo qodobka labaad marka uu la wadaaga ma qaanunka labaad wuxuu leeyahay caado yani wanaagsan sa u kasbato mid xunna meesha u saato caadada wanaagsan waxa ka dhigtaa mid fudud oo sahal oo marka si fudud ku gaari karto caadadii marka xumayn waxa ka dhigtaa mid adag oo marka si mashaqo aad ku gaari karayso يعني مركا سو عادي حميد يعني حبك ku gaaraysa iyo deegaanka ku saamaxay aad ka dhex baxdo oo marka aad yani aad ka fogaato waxa marka aad kaanaysa inaad marka si fudud aad u dhex gasho marka halka caadadii marka wanaagsan aad deegaan fiican aad u samaysay oo marka si wanaagsan marka iyada aad ugu soo dhawaanayso qodobka saddexaad inuu wadaag wuxuu leeyahay caadada wanaagsan ijcal caada yani alxasana jadaaba mid yani soo jiidata kan ama meel deegaan soo jiidanaya yani la kan wal caada sayyi'ah yani غير الجدابه يعني عادتي حميد أكتر تمد أكو سو جيدا هلك عادتي وناسنين مركا أكتر جيسا مركا ميد كو سو جيدا أو مركا عيد كور ريحة أكتر يعني سميسته تصالح يعني سيجارة يا مخدرات أدو عبنسي ضدكي مركا يعني هلك كو وناسنا مركا كوفي يعني وحى مركا أدو عبجري كفروا ومركا يا سيجارتك واحد مركا يعني تكتاقات كو سو جيدا يا عادتي وناسنين مركا أتشعلي صار مركا يعني ضد أنا وحى اللهين أما مخدرات اللهين ضد دواته يعني واحد كو سو جيدا يعني مركا وناسن يدينا وكا ضحك حنا يعني marka yani habka noocaas marka sameey buu leeyahay ugu dambeyn waxa uu soo gabagabeynaya qodobka afraad oo marka ah caadada wanaagsan waxa ka dhigtaa mid marka aad ku raaxaysato oo marka aad jeclaato mukaafaana marka naftaada aad ugu samayso halka marka caadada xun marka soo ka fikirto oo marka soo niyadaada ku soo dhacdo aad ka dhigto marka mid iska furayso isla markaana marka aad diiq iyo marka murugo yani naftaada aad ka dareensiiso inay marka ay ku dambeynayso marka wuxuu leeyahay hadaad isbarbardhiga noocaas mar walba ku samayso labadii caado isku bedelisay waxa marka sahlanaanaysa inaad caado wanaagsan yeelato halka caadooyinkii hore marka ay meesha ka baxayaan
runtii buuggan Atomic Habit waa buug runtii aad u qiimo badan waa buug qoraal uu si xeeldheer uga faaloonaya isla markaana u talanadhigayo isla markaana graphics iyo markaa sawirro iyo wax kasta uu kugu fahansiin karayo isla markaa caadooyinka aad u bedeli lahayd uu u soo qaadanayo يعني نموذج جرو كوبان أما سو كوبي جرو كوبان من كسمين مانتا أو قطبة سيكون من تعتبرين لكن قطب كست يعني فاهين آد وفربضر حال أي مركزي دليا وعرجينا دمانتي من الأخير دوتان وعبد الله منصوري وعيد الله السلام عليكم نبدليه